haddaba codbixintii baarlamaanka ee shalay ma ku dhacday hab sharci ah eedaha loo jeediyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre ma yihiin kuwa meesha ku jiray halkee ayayse tahay in meeshan looga dhaqaaqo su-aalahan iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. waa maadsantahay haaruun, runtii shalay waa kulley horta baarlamaanku waa waajibaadkiisa xukuumadda inay ansixiyaan iyo xukuumad kale caada inay la xisaabtamaan intaas oo u leeyihiin, laakiin habkii shalay hadda loo maray ka qaadista waxaa moodaa inay ahayd hab aan raacsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka oo ah xukuumadda marka hore mooshinna laga keeno la siiyo fursad ee iyadu maaragtay isku difaacdo waxyaaba lagu soo eedeeyey, kadibna codayn la geliyo markii adigu xildhibaanadii soo eedeeyey ee iyaguna hadlaan markaa in codayn la geliyo oo maaragtay codayntaasi ay xukuumadda ama ku dhacdo ama ay ku keesho kalsooni ay kusii wada hudeen. marka runtii xeer hoosaadka lama sugayn. baarlamaanku tirada waa laga yaabaa inay haysteen ee uga qaadi kareen, sababay uga cabsadaan in mooshin la keeno anigoo dhamaha inay meesha jirtay marka waxay ahayd, laakiin xeer hoosaadkaas ina sugay sababtoo ah sideedaba annaga haddii waxyaabaha shuruucda aan ku heshiino inay nahagaan oo aan isku qadarinay inay yihiin shuruucdii markaasi aan isku qadaqayn haddaan la ixtiraamin oo aanan dee kalsoonida dadku institutionska dowladeed ku qaban way yaraanaysaa. maxay kula tahay sababta ay qaab furan uga doodi waayeen, mooshin uga keeni waayeen ra-iisul wasaaraha, codkana loogu qaadi waayo qaab furan? maxay kula tahay adiga sababtaas? waxaa moodaa hadda sida aan qolay aan ka arkay hadda meediada iyo eedeyn oo labada dhinacba inay socoto la leeyahay wasiiradiida marka saasa maaragtay codkii horey looga galay marka hore, laakiin ajado waxa ay laga doodo wax kastaba hadda caana mas-uuliyadeeda runtii baarlamaanka qaadaya sababtoo ah waxaa la rabay inay xeerka sida uu dhigan yahay ay maraan laga keeno waxyaabaha lagu qabsaday xukuumadda sax ma ahayn oo idu waa meesheeda oo runtii waxyaabaha laga gaabiyo oo dhan yaa eedeeda iska leh waa meel kaleeto, laakiin habka loo raacay xeer hoosaadka baarlamaankii inaan la sugeyn runtii xeer jabin bay ahayd wixii adigu dhacay shalay. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labaduba waxay dhowr jeer ku celceliyeen islamarkaana waxyaabaha ay ku faani jireen marka ay noqoto wada shaqayntooda waxay ahayd inay midaysan yihiin, ayna ka duwanaanayaan qaab wada shaqayntii madaxweyneyaashii iyo ra-isul wasaarayaashii iyaga ka horreeyey, laakiin taasi shalay bay dhammaatay. maxay kula tahay taas? maxaad ka akhrisatay? wallahi horta dee markii horeba ayaga waxaa ka keenay inay saas dhaxaan waxay la tahay inaysan dee xirfad u lahayn dowladnimadu waxa ay tahay moogtahay madaxweyne iyo ra-isul wasaare waa run waa inay wada shaqeeyaan, laakiin haddana horta annaga foundationka siyaasadeed ee dalkeena wax ka khaldinaya sababtoo ah ra-isul wasaare waxay ahayd majority inuu keeno majorityna ka qaado. waxaa moodaa dalka ra-isul wasaaraha parliamentary systemka ra-isul wasaaraha ugu muhiimsanaa inuu dalka noqdo qofka siyaasadda haya, haddana annaga dhaqankeena parliamentary weeye, laakiin haddana waxaa moodaa foundationka siyaasadeed in laga halisiiyeen. waa imaanaysaa siyaasadda in lagu kala aragti doonaado madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha meelo qaarkood. haddii baarlamaankana markaas oo kale waxaa loogu talagalay haddii fakarka lagu kala duwanaa inuu isaga arrintu galo uu saxo qofka markaas uu isleeyahay aragtida dalka danbay ugu tahay. marka waxay la tahay hadee tii wadajooggaas iyo wixii ballanqaadyadaas kuley hadda waxba kama jiraan, waan ka duwanaanaynaa. weliba sharci jebinta iyo habka loo maray iyo sida dhaqsada loo qaaday ra-isul wasaare hadda ka hor aysaan soo martay ma jirtaan u malaynaya. adi hadda ka hor soo martay waad iscaasishay, laba jeer baad ra-iisul wasaare noqotay, waayo aragnimadaas ka hadal bal waxyar. horta nigu hadee horta waxa yaab leh moogtahay dalka siyaasadeena waxa weeye mas-uuliyadii dalkana madaxweynaha haya, awoodii executive ra-isul wasaaraha haya, marka waa adiga arrin markasta u baahan madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha inay ilaaliyaan balance sideed isla markaasna ay runtii ku dadaalaan in hadafka iyo higsiga markaas dalka loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan. laakiin haddii wax aysan markaas aragti iyo ku kala duwanaadaan waxaa roon in labada qof uu meesha ka baxo sababtoo ah uma sii socon karo dalkana uma fiicna in
isku soo horjeed iyo maaragtay iyo muxuu ahaa ishayn uu kusii shaqeeyo aniga waxaan ku leeyahay runtii niyo annaga waxaan u baahanahay dastuurkan dhexdiisa inaan inta ku shaqeyno aan runtii clarity wax la dhaho ama tafsiirno oo fasirno exactly awoodaha iyo wasaaraha waxa awood u leeyahay in madaxweynaha roolkiisa haddaynaan constitution ku difaacan gareen waa un imaanaysaa isqabashadan oo maaragtay markas sababtoo ah wasaare iyo madaxweyne parliamentary system asigoodina uma dhaqmayno presidential iyo parliamentary system isku jiro kaleetaan innaga hadda u soconnaa marka taas in la saxo oo runtii dastuur ahaan loo saxo anigu waan qabaa taasaana keenaysa hadda wasaaraha la keeni doono muxuu noqonayaa muxuu wax ka bedeli karaa oo muuqda qodob aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan sababta xilka looga qaaday ra-iisul wasaaraha markaan ka hadlayno baarlamaanka qodobo ayay taxeen inuu guuldaraystay nidaamka federaaleynta inuu la yimaado hab qeexan oo doorasho qof iyo cod ay ku qabsoomi karto iyo qodobo kale dhinaca kale ee ra-iisul wasaaraha iyo taageerayaashiisa iyagu waxay ku macneeyeen in mowqifkii uu qaatay ra-iisul wasaaraha ee ahayd in muddo kororsi aysan dhicin doorashadana waktigeeda lagu qabto inay taasi sabab u tahay maxay kula tahay labada dhinac waxaa ka jira sababta waxa weeye horta midatan ah doorashada sideeda horta hoggaan waxaa laga rabaa inuu mar kasta runta u sheego dadka iyo dalka meesha wax suuroobay wax suuroobay waa sax inaan laga shaqaynin arrintii doorashada dastuurka inaan la dhamaystirin inaanan muxuu ahaa magaceedii maqaamkii banaadir inaan la samaynin waxayna ahayd sideedaba bishaan hadda July baan ku jirnaa July 2019 ugu dambeyn hadday arkeen sharciga doorashada oo registrationskii dadka aan la samaynin in inta baarlamaanka la hoostago la dhaho ma socon karto waqtigaas kuma qaban karno doorashada aanu raadinno sidii aniga aan yeelay aan raadinno talo kale ee aan 2021 ugu gudbi karno taana lama samay laakiin eedda ra-iisul wasaaraha keligiisa qaadaya arrintaas waa kushka meesha taagan sababtoo ah baarlamaankana waa jooga madaxweynahana waa jooga waana u wada jeedeen in waktiga uu socdo wixii loogu talagalayna waktigeeda inayn lahayn waktiga registration loogu baahanaya in dadka lagu registareeyo securityga lagu sameeyey political agreement laga keena inaysan ku suuroobeynin hal sano gudaheeda marka taas waxay ahayd in runtii si saraaxa ah baarlamaanka ay hor yimaadaan ay ka sheegaan ay yidhahdaan waqti kuwa qasbanayo sidii aniga aan yeelay 2015 July 4 bilood 5 bilood anoo joogaan hortagay waxaa ku eeday ma soconayso waxaan rabaa inaad saxiixisaan inaad raadino talada kale aan dalka uga saari karno sababtoo ah waxa ii muuqatay hirshabeelle inaan sameynay ahayd in oo galmudug aan sameynay ahayd in aqalka sare aan sameynay ahayd marka intaasoo dhan inaad sameeyay iyo maqaamka banaadir iyo sharciga doorashada iyo waqtigaan haysta isma keenin baarlamaankan hortagay July 2015 waxay ahayd ma soconayso waxaa inaad isisaan kalsoonida aan ku raadin lahaa dalka waan isiyeen madashan iyo markaas ka dhashay waxaas marka horta laakiin eedda khayra iyo xukuumaddiisa kaliya ma leedahay anigu qabo baarlamaanka iyo madaxweynaha waa la qaban sababtoo ah ayaga ruuxooda waxay ahayd arrintan ilaa dalkan dowlad ayaga kulli waa dowlad hal dowlad wey in arrintan waxay ahayd intay ka wada hadlaan ee arkaan ee dhahan warsee dalka uga saari karnaa waqtigiina waa nagu socdaay markaas ay xal ama benchmarks intay samaystaan ee dhahan saan ku wadaynaa lama dhihin saacadda ugu dambaysaa blanki oo dhan maaragta waxaa la saaray wasaarihii dhaqankan oo runtii soomaalida ka jiro hadda annaga muddana na soo waday oo ah wixii fiicanna madaxweynaha leh wixii khasaaro iyo wixii khaldamada wasaaraha leh dhaqankaas wixii inaan ka talaabsano oo runtii aad la wada qaado oo muhiim weeye hadda iyo wixii ka dambeeya iyo meesha looga dhaqaaqayo halkan galmudug iyo dhuusamareeb qodobo ayaa ka soo baxay kulan kalena waa loo madlan yahay baarlamaankuna waxay sheegeen inay iyaga u taalo inay go-aan ka gaaraan nidaamka doorashada iyo qaabkii lagu geli lahaa iyo dhamaystirka sharciga doorashada guddiga doorashada iyo baarlamaanka aqalka hoose oo aad moodo dhinac inay waxyaabaha qaarkood ka siman yihiinna iyaguna waxa ay soo jeediyeen tubta la raacayo maxay kula tahay yaa ugu habboon yaa iskale hadda wixii ka dambeeya yaa iskale diyaarinta iyo ka wada hadalka qaabka doorashada iyo sidii lagu geli lahaa waa mahadsantahay hadda horta su-aashan waa su-aasha ugu muhiimsan wey hadda meesha tan
nin horta sideeda sharciyada lagu sheegayo sharciga ruuxiisa siyaasadda haddii sharciga uusan siyaasad ahayn maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuuriga iyo 9 qofood inta laga dhigo interpretationka sharciga ama tafsiiraadda sharciga ha loo codeeyo lama dhexin marka sharciga sideeda waxaa ka muhiimsan stabilityga siyaasadeed maaragtay in la ilaaliyo oo waxay siis lagu wada yahay la gaaro hadda xaaladda taagan khatar meel khatar aan marayna sababtoo baarlamaankiina wuxuu leeyahay waxaan ku soconayaa ilaa aan ka gaarsiiyo dalka doorasho qof iyo cod waqtigii rabta waxa qaadatay dalka intiisii kaleeto xisbiyada siyaasadeed dadka siyaasiyiintii kaleeto dowlad goboleedyada waxay leeyihiin maya waqtigeedina ku dhacday haddaan maanta la helin qof dhexaada oo waxaan lagu sheegareeyay oo runtii aan la isku keenin labadan aragti aan wax lagu heshiin ka inta ay tagaysaa dalka iyo dadkuna waa ku dhibaatoonaya runtii ana waxaan qabaa hadda wasaaraha imaanaya habka lagu soo xulayo hadday noqoto hab hal dhinac oo aan wada tashi laga sameyn oo aan la cadeyn awoodaha u yeelanaya iyo waxa la rabo inuu lagu sheegareeyo labadan meel uu sameeyo ka soo baxay iyo baarlamaanka bishii taagan yahayna aanan isla fahmin sidii meel dhex loo keeni lahaa runtii waxaan ku soconaa waa khatar waa anigu kolay talada hadda aan madaxweynaha siinayo waxa weeye inuu consultationka badiyo muxuu ahaa sida lagu soo xulay in la cadeeyo wasaaraha imaanaya awoodaha uu ku yeelanayo miisaanka siyaasadeed iyo sida la rabo inuu u soo matabixiyo dalka haddii tan waxaan qabaa runtii meel crossroadan taaganahay khatara waxaa ka imaan kara runtii dib aad weyn annagana soomaalina maanta niyadjab kaleeto diyaar uma aha ummadaas waxay rabaan in wax hore u socoto waxaan rajeynayaa haddii ilaahay inay maslaxada shaqayso in la odayeeyo in runtii laga dadaalo sidii dalka kan xasilooni u dhici lahayd ee laisugu keeni lahaa meel loo negotiate gareyn lahaa meel laga aadana la aadi lahaa